Hi guys, assalaamu calaykum. Waniga Cabditax Ibraahim halkan nagala socota Naxwi Somaltech. Maanta waxaan ku tusayaa doonaa qaabka maxay ahayd YouTube videoska loo upload gareeyo waxa loo yaqaano YouTube-kaaga dhexdiisa. Waa new feature hadda soo baxay. Marka waxaan ku tusi doonaa aan isla eegno. Waxaad samayn doontaa YouTube-ka aad soo furi doontaa. YouTube-ka doonaysid ama YouTube-kaaga oo videoska ku yaalaan. Okay. So marka waxaad samayn doontaa in aad maxay ahayd ku dhufato halkay ku qoran tahay YouTube kaaga aad tagto. Okay. kadibna waxaad ku dhufan doontaa halkay ku qoran tahay manage videoska. Okay. So marka videoga aad doonaysid markaas aad maxay ahayd qayb kamid ah aad upload gareyn karaysaa ama aad qayb kaliya qarinaysaa. Okay. So marka videoga ayaa doonaysid ama aad doonaysid ayaad ku dhufan doontaa. So basically bar videoga ugu horeeyaan waa soo qaatay. Let's say. So marka waxaan samayn doonaa okay markaan ku dhufto videoga aan doonayo waxaan sameynayaa xaggan ka arkaysid option kale aan samayn karay laakiin waxaan ku dhufanayaa option ka xaggan iigu yaala oo loo yaqaan editor oo macnaha inside-ka wuxuu ku jiraa YouTube-ka marka waxaad ku edit gareyn karaysaa waxyaabihii aad u baahnayd sida inaad kusoo dhigto ND videoska iyo waxyaabahaas oo dhan laakiin maanta waxaan eegaynaa qaabka loo blur gareynayo ama wax loo qarinayo waxaan sameynayaa blur parts of video waan ku dhufan doonaa kadibna laba xaggan yaala face blur iyo maxay custom blur marka kan doonaya ayaan blur gareynaya marka custom baan ku dhufanayaa oo macnaha qayb kamid ah basically qaybta la blur gareynayo waad aragtaa in uu ii noqonayo qaybtan okay so marka sida arkaysid iminka blur baan sameeyay xaggii hore aan ka sameeyay xaggii hore ayaan ka sameeyay blurkii hadii doonaysa xaggana way u jiidi karaysaa waad ka sameyn karaysaa blurkii basically aan ku tuso qaabka blurka loo sameeyo ama aad u qarinaysid qayb kamid ah maxay ahayd shayga ka qaybihii xaggan aad dooranaysaa ama waxaad fix gareyn karaysaa shayada so basically waad weyneyn karaysaa ilaa inta doonaysid ku sameyn karaysaa blurka ilaa iyo inta aad doonayso ayaad maxay blurka ku sameyn karaysaa okay so marka basically waxaan ku tusayaa dhowr option baa ku yaala inaad overlay ka dhigato oo macnaha uu ku noqdo shay gooba ah ama inuu ku noqdo wax loo yaqaano rectangle dhammaan uu shayga ku wada cover gareeyo kadibna aad fix ku dhufato oo positionkiisa aad fix gareyso ayaad sameynaysaa so marka video game ka soo qara qaybtaas aan blur gareeyo qayb videoga kamid ah waa maxay ahayd introgi kamka markaysi meeshii oo waan blur baan ku sameeyay haddaynu socono kale ilaa iyo meesha aad geyso oo kale ayuu blurka ku saarnaanay la sameeyay ka xagan oo kale uu ii saaran yahay meel kasta marka haddaan ka doonayo blurkaas inaan ku sameeyo oo maxay ahayd aan sameeyo waxa weeye uu ii saxnaanaya waa liga doonaya so marka aad doonayaan inaan save gareeyo oo aan blurkay ku save gareeyo waxaan sameynayaa laba option waxaan ku inaan save gareyso inaad ka noqoto tan save imika si marka ku dhufato save waxaad arkaysaa dhowr shay halkan ku yaalaan oo ku sheegay in waqti ku qaadanayo inuu isbedelo sidoo kale wuxuu ku sheegay in viewerskaaga ama dadka ku daawada ay arkayaan videoga karanka hadda ku yaala oo inta waqtigu isbedelayo maxay ahayd ay ku sugayaan okay inta ku jirto shaygan videogaaga inaad wax ka bedel ku sameyn kareen waa ilaa changeskaas ku dhamaanayo so marka waad sugaysaa maama waxa la oranaysaa maxay ahayd waqtiga qaansa so marka anigu ma doonayo maxay aan blur gareeyo because of videoga waan ugu talagalay marka hore soo haado kadib waxaan oranayaa cancel baan oranayaa kadib marka cancel waxaan oranayaa discard samee oo iga samee discard oo macnaheedu ma baahni sadarkiisa sida so marka qaabkaasi waa qaab fudud ama waa new feature cusub oo kugu jira maxay ahayd insert video editor kaaga maxay ahayd YouTube-ka oo aad ku sameyn karaysid shayyo fara badan maanta waxaan qaabka lagu sameeyo blur ama lagu qariyo qayb kamid ah videogaaga so marka hadda 10 ka faa'iiday waxaan jeclaan inaad nagu soo biirto sidoo video la saarto waa mahadsantihiin dhamaantiin